maalin wanaagsan asxaabta maantay waxaan inta ku fiirinaynaa oo ku haysanaa radio transmitter waa FM radio transmitter. FM radio transmitter kan aan inta ku haysano wuxuu ka kooban yahay microphone, resistors and transistor, inductor oo coilkan ama fiiladan loo yaqaano, capacitors iyo PCB boardkan waa meeshan aan wax ku kor alxamanay, iyo fiiladan oo batteriga dabkan oo keenaysa 9V batteriga, iyo fiiladan oo ah antennada. haddii marka aan si kale u sharaxo waxaa dhacayso codka aan ku hadalno ama mobile ka shidno ama uu maqlo microphone-kan ayaa qaadaya codka, kadib codkaas ayuu wuxuu gudbinayaa transistorkan basekiisa. Transistorkan markii basekiisa uu gudbiyo codka oo codkaas oo signal ah, electric signal ah, codkaas ayaa markaas wuxuu sameynayaa signalkii si lamid ah ayuu wuxuu u wadayaa, macnaha uu sameynayaa oscillationkaas oo ah frequency-ga aan isticmaali doono ee FM ka loo yaqaano frequency modulator. Frequency modulatorkaas wuxuu macnaha markii basekan uu imaado signalkii codka ahaa wuxuu sameynayaa, wuxuu drive gareynayaa ama wadayaa LC-ga waxa loo yaqaano L-tan oo inductor-ka ah fiilada, iyo C-ga oo capacitor-ka ah. labadan waa oscillator-kii, waa wixii frequency-ga sameynaya. waxaa drive gareyn doona oo frequency-gan si aan codka ugu modulate gareyno hagi doona transistorkan waxaa hagi doona microphone-kan. marka sidaas ayuu codkii wuxuu u gudbi doonaa radio ahaan antennadan, kadibna raadiyaha ayaan ka dhegeysan doonaa. haddii marka raadiyaha theory ahaan aan u laabano, inta waxaan ku haysanaa symbol yar ama diagram yar oo macnaha noo sharaxa qaabka raadiyaha meesha uu uga jiro electromagnetic waveska. Electromagnetic waves waa tiradii ayay ka bateen. waxaa ku jiro radioha oo hadda aan isticmaalayno, waxaa ku jiro microwave-ka, waxaa ku jiro infrared-ka, waxaa ku jiro visible light-ka, iftiinka ishana aragto. light-ka infrared-ka iftiinka ayuu ku jiraa, isna light-ka ayuu ku jiraa, laakiin ishana ma arki karto. visible light-ka ayaa inta soo galaya, ultrasonic ayaa xag kusii jira, x-rays-ka iyo gamma ray-ga. marka electromagnetic waveskan tirada badan annaga waxaan ka isticmaalaynaa FM radio ayaan isticmaalaynaa. radiona wuxuu u kala baxaa FM, AM iyo kuwa kaleeto oo kala duwan, sida tusaale ahaan low band iyo short waves iyo waxyaabahaas ku loo yaqaano. marka anaga raadiyahan maadaama isticmaalayno simple waaye, ideyadana waa microphone-kan ayaa codkii wuxuu u bedelay electric signal. electric signal markuu u bedelay, electric signalkaas ayaa wuxuu tagayaa baseka transistorkan. transistorkanna wuxuu matalayaa in uu macnaha sameeyo amplifying camal ama driving, inuu drive gareynayo LC-ganna waa bankigaas oo sameynayo macnaha wuxuu sameynayaa oscillation. tusaale ahaan FM frequency-ga waxaan inta wuxuu ku leeyahay sidaa ujeediin tab yar, meel yar oo bolkan la gelin karo, kadibna la adjust gareyn karo, la bedeli karo numberka ama micro henry-ga ama millihenry ama inta ay tahay macnaha inductor-ka value-giisa ayaan ka bedeli karnaa.
haddii aan ka bedelno micnaheedu waxay tahay waxaa bedelmi doona frequency-ga uu soo laalaabanayo FM-ka ayaa isbedeli doona. haddii 92 megahertz ay ahayd FM ah, haddii aad bedeshid 80 waa ka dhigi kartaa 86 102. marka meeshan waa meeshii aan raadiyaha aan hawada u gudbinayno, meeshii aan ka set garan lahayn channelka aan macnaha laga dhageysan karo meeshaan ka sixlayn. marka basically idea-da muhiimka ah in la fahmo waxay tahay microphone-ka codkii ayuu qaaday, electric signal ayuu u bedelay. electric signalkaas ayaa wuxuu drive garaynayaa transistor-kan, basekiisa ayuu imaaday, transistor-ki ayuu drive garayay, transistor-ki wuxuu drive garaynayaa LC-gan oo frequency-gan ah. frequency-gan iyo oo shabahaya codkii ayaa waxay ka wada baxayaan RF ahaan, radio frequency ahaan, fiiladan oo ah antennaga. kadibna raadiyahan ayaa heli doona, markii uu helana waxaa dhacayso raadiyahan ayaan ka hadlaya. raadiyahan markii uu helo FM antennadan oo kale ayuu isna leeyahay, wuxuu helaa radiogii aan soo gudbinay oo kusoo gudbinay antennadan kaleeto. kadib raadiyi markuu helo sidaas ayaan ku maqli doonaa codkii ay noo soo gudbisay. waxaan ku xiri doonaa hadda batterigii oo 9 volt battery ah. waan ku xiray. waxaan samayn doonaa marka in waxaan hadda sameynaa marka kan wuu noo shidan yahay, raadiyaha ayaan shidanaynaa. waxaa maqashaa sun mittainen. waxaan shidi doonaa cod yar si aan u maqalno. teleefankeyga ayaan shidi doonaa, kadibna waxaan u dhawey doonaa raadiyaha. dhegeyso codkan waxaan ka maqlaynaa mobilkeyga, kama maqlayno raadiyaha. sidaas ayay markaan teleefankeyga markaan ka dhegeysanayno sidaas ayuu hadli doonaa, laakiin raadiyaha markaan ka dhegeysano oo microphone kusoo gudbino sidaan ayuu noqon doonaa. Mutta en minä sellaisesta piittaa. Mieluummin otan aikaa itselleni. waxaan si qalad u jaray ateenadii, laakiin muhiimadda intii aad waad aragteen. waxaan cod ku gudbinaynay teleefankeyga ayaan cod ka gudbinaynay, waxaana u gudbinaynay radio ahaan, waxaana gudbinayay FM transmitterkan. sidaas ayaa iyo si lamid ah ayaa u dhisi kartaa. aad ayuu u sahlan yahay. muhiimadana intaas ayay ahayd. mar kale waxaan soo gelin doonaa annaga oo sameynayna dhisayna boardkan haddii ilaahay idmo. intaas ayaan idinku dhaafay. See you next time.